Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada dhammaantiin mar kale casharadaydii imtixaanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama bilaabaysa barashada luqadda Jarmalka. Lektion 31 cashirkeena 31aad waxaynu ku baran doonaa cashirkeenan ficilada loo yaqaano Trennpaare Verben, ficilada kala go'an loo yaqaano ama ficilada la kala saaray ama la kala saaro. Macnaha Trennpaare, Trenn ama Trenn waa kala saarid. Haddaba waxaynu ku baran doonaa cashirkan kow maxay yihiin Trennpaare Verben. 2 booska ay ka galaan jumladda. 3 qaabka loo conjugate gareeyo ama sida loo conjugate gareeyo. 4 iyo inta Trennpaare ama ficilada Trennpaaraha inta ugu muhiimsan. Haddaba aynu ku bilowno labadan ficil ama labadan Trennpaare Verben. Aufstehen iyo mitkommen. Aufstehen macnaheedu waa soo kicid amba kicid. Mitkommen na waa soo raacid amba waa raacid. Haddaba ficilka u horeeya aufstehen wuxuu ka kooban yahay laba isku tegay ama laba shay oo isku tegay sida auf iyo stehen. Mitkommen iyadana sidoo kale waxay ka kooban tahay laba isku tegay sida mit iyo kommen sida aan calaamadda idinku kala qaybiyay. ficilada sida auf iyo mit waxaa luqadda Jarmalka loo yaqaanaa prefix ama prefix, halka stehen iyo kommenna ay yihiin feebabkii caadiga ah ee aad taqaaneen. Haddaba aynu eegno bal sida marka jumlad la geliyo aynu u isticmaali karno. Ich stehe 7 Uhr auf. Aan ku celiyo mar kale. Ich stehe 7 Uhr auf. Waxaan kacaa 7 subaxnimo. Booska labaad waxaa ku jira feebkii oo ah ficilkii, halka auf oo ah prefix sida aynu hore u soo sheegnay waxay ka gashay jumladda halka ugu dambaysa. Haddaba markaad fii faraage aad ku weydiinaysidna waxaad ku bilaabaysaa wann stehst du auf. Aan ku celiyo mar kale. Wann stehst du auf. goorma ayaad kacaysaa. Markaad rabtid sidoo kale in aad su'aal ahaan ku weydiisid ficilka halka u horeysa waad soo marin kartaa. waxaad ku bilaabaysaa stehst du 7 Uhr auf. Aan ku celiyo mar kale. stehst du 7 Uhr auf. ma waxaad kacdaa 7. sidoo kale ficilada modal verbka waad gelin kartaa adigoo odhanaya wann willst du aufstehen. aan ku celiyo mar kale. wann willst du aufstehen. goorma ayaad rabtaa inaad kacdid. willst waxa weeyaan modal verb sida halka idinka muuqata ee aan idinku calaamadeeyay. halka kale Trennpaare amba ficilkii Trennpaaruhu wuxuu galay booska ugu dambeeya ee jumladda. Haddaba aynu eegno sida loo conjugate gareeyo Trennpaaraha aufstehen. aynu ka bilowno ta u horeysa. Ich stehe auf. waxaan kacaa. Du stehst auf. waxaad kacdaa. sie steht auf. isagu wuxuu kacaa. sie steht auf. iyadu waxay kacdaa. wir stehen auf. waxaan kacnaa. ihr steht auf. waxay kacaan. sie stehen auf. waxay kacaan. haddaba aynu eegno ficilka isagana mitkommen.
Wir gehen zur Schule. Kommst du mit? Aan ku celiyo mar kale. Wir gehen zur Schule. Kommst du mit? Waxaan tegaynaa iskuulka, mana soo raacaysaa? Aynu isagana eegno abholen oo ah soo qaadid. Kannst du mich 16 Uhr abholen? Aan ku celiyo mar kale. Kannst du mich 16 Uhr abholen? Ma isoo qaadi kartaa 4? Aynu eegno aufmachen oo iyaduna ah furid. Es ist warm. Kannst du das Fenster aufmachen? Aan ku celiyo mar kale. Es ist warm. Kannst du das Fenster aufmachen? Waa kulayl, ma furi kartaa daaqadda? Ficilka kale waa ankommen, imaansho ama uu soo gaadho. Der Bus kommt 8 Uhr an. Aan ku celiyo mar kale. Der Bus kommt 8 Uhr an. Basku wuxuu imanayaa 8. Aynu eegno ficilkan kalena abfahren waa tegid. Der Zug fährt 8 Uhr ab. Aan ku celiyo mar kale. Der Zug fährt 8 Uhr ab. Tareenku wuxuu tegayaa 8. Aynu eegno ficilkan kalena einkaufen waa adeegasho. Am Wochenende kaufen wir in der Stadt ein. Aan ku celiyo mar kale. Am Wochenende kaufen wir in der Stadt ein. Isbuuc dhammaadka waxaynu u adeeg tegaynaa magaalada, amba waxaynu ka soo adeeg samaysanaynaa magaalada amba suuqa. Aynu eegno ficilkan kalena anrufen. Aan ku celiyo mar kale. Anrufen soo wicid. Kannst du mich später anrufen? Aan ku celiyo mar kale. Kannst du mich später anrufen? Ma isoo wici kartaa hadhow amba mar dhow? Übung Laylis. Dis jumlad ta koowaad sida ay hadda u qoran tahay sax ma ahan, waa khalad. Isku hagaaji oo qaabka ay saxda ku tahay labada su'aaloodba uga soo jawaab. Haddii aad casharka fahantay, kommenti ahaana iigu soo qor. Haddii aad khaladid iyo haddii aad saxdidba, aniga ayaa idin soo sixi doona oo siday saxda ku tahay idiin sheegi doona. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i daawatay ee aad i dhegaysatay. Waan rajaynayaa in aad dhammaantiin wax badan casharka ka wada fahanteen. Haddii aad casharka ka heshay, fadlan sheer garay oo la wadaag asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.